asbaabta keenta businessyada qaar inay fashilmaan waxaa ka mid ah inaysan marka horeba lahayn business plan amaba qorshe ganacsi. Videogan waxaan kula wadaagi doonaa 5 faa'iido ay leedahay inaad samaysato qorshe ganacsi intaadan businesska bilaabin. Faa'iidada koowaad waa clarity of vision oo macnaheedu tahay in business planku kaa caawinayo inay ku caddahay ahdaafta iyo yoolalkaad hiigsanayso muddada dhow iyo midda fogba. Faa'iidada labaad waa strategic direction oo macnaheedu tahay in qorshaha ganacsiga uu kaa caawinayo inaad dejisato istaraatiijiyaadkii iyo tacticadii aad ku maareyn lahayd ganacsiga. Midda saddexaad waa risk mitigation oo macnaheedu tahay in qorshaha ganacsi uu kaa caawinayo inaad sii saadaaliso khataraha suurtagalka uu businesskaaga wajihi karo sidoo kalena aad ka gaashaamato. Faa'iidada afraad waa attracting investors oo macnaheedu tahay in business planka amaba qorshaha ganacsi uu kaa caawin karo inaad soo jiidato dad ay suurtagal tahay inay maalgashtaan ganacsigaaga hadday yihiin bangiyo amaba ganacsatada qaar ay daneynaya inay business kula sameeyaan. Faa'iidada shanaad waa operational guidance oo macnaheedu tahay in qorshaha ganacsi uu kuu noqonayo qariidad hagayso habsami u socodka howl maalmeedka ganacsigaaga sidoo kalena kugu hagayo waxyaabaha hortabinta leh.